baraaruga dadkaygaanidha boqol kun oo jeere baaq waxaan u dirayaa dhammaan bilaadaadini kulan wacan saaxiibayaal muuqaalkeena maanta waxaynu ku dul istaagi doonaa oo ku faaqidi doonaa khataraha dawooyinka aan dhakhtarku u qorin si qaldan isticmaalka dawooyinka waa khatar caafimaad oo halis ah badanaa bulshadeenu waxay isticmaalaan dawooyin aan dhakhtar u qorin taasi oo loo yaqaano illa ka cabir waxaana markaa dhacda in inta badan bulshadeenu ay arrintan kala kulmaan khataro dhinaca caafimaadka ah oo halis ah Soomaalidu waxay dhahdaa qof buka boqol u talisay iyada oo markaa bulshadeenu ay u arkaan talooyinka ay seelayaan qaraabadooda asxaabtooda iyo ehelkoodu in markaa ay tahay taladii ugu mudleed ama markaa ugu macquulsaneed ee uu qofku u qaadan lahaa muuqaalkeena waxaynu ku dul istaagi doonaa maxaa sababa qaadashada dawooyin aan dhakhtarku u qorin iyada oo bulshadeennuna ay arrintan kala kulmaan khataro dhinaca caafimaadka ah oo halis ah inta muuqaalkan aan gudagelin daawada aan ku xusuusiyo in muuqaalka aad laagi loo saarto sidoo kalena aad sii sheergarayso si saaxiibo fara badan oo wanaagsan sidaadoo kale uu muuqaalka u gaaro mahadsanid qaldan isticmaalka dawooyinka iyo sidoo kale qaadashada dawo aan dhakhtar qorin waa khatar dhinaca caafimaadka ah oo caalami ah talila waxaa ugu wacan in dawooyinku ay yihiin kuwa si sahlan ama si joogto ahba looga heli karo farmashi walba iyo goob kasta iyo in dawladdu aysan xil iska saarin ka warqabka iyo kontaroolka dawooyinka markaa lagu iibiyo farmashiyada iyo sidoo kale hadba sida bulshadu u iibsanayaan dawooyin aan dhakhtar u qorin waxaa kaloo iyala jirta oo aan la dafiri karin in bulshadeenu ay aaminsan yihiin aragtida ah illa ka cabir bedelkii markaa ay aadi lahaayeen oo waqti iyo qarashba ay ku bixin lahaayeen la kulanka dhakhtar si markaa loo baaro oo loo ogaado xaaladda dhabta ah iyo sidoo kale dawada ku habboon ee uu qofkaa qaadan lahaa arrimahan iyo kuwo kale oo isbiirsaday ayaa sabab u ah in markaa bulshadeenu ay badi qaataan dawooyin aan dhakhtar u qorin iyada oo inta badanna ay kala kulmaan khataro dhinaca caafimaadka ah oo halis ah dawooyinku waxaa si sahlan looga heli karaa ama si joogto ahba looga heli karaa farmashi walba iyada oo xitaa uusan kuu qorin dhakhtar ama aadan haysan warqadda rajeetada ah ee uu bixiyo dhakhtarku dadka qaar ee qaata dawooyinkan aan dhakhtarka qorin waxay u qaataan hadba sida ayagu ay la tahay ama sidoo kale talooyin kaga yimaada asxaabtooda ehelkooda iyo qaar badan oo ka mid a dadka iyaga u dhow dadka qaar waxa ay ka baqaan la kulanka dhakhtar iyo in baahidooda ay u sheegtaan ama sidoo kale waxa ay ka baqaan qarashaadka badan ee lagu bixiyo la kulanka ama booqashada dhakhtarku waxaana ay door bidaan in bedelkii ay la kulmi lahaayeen dhakhtarku in si toos ay u tagaan farmashiga oo ay ka soo iibsadaan dawooyin aan dhakhtar u qorin taasi oo xaaladdu ka sii dhigaysa mid markaa cakiran ama xaaladdu sii murjisa iyada oo aan dhakhtar lala tashan waxay keeni kartaa iska hor imaad dhinaca dawooyinka ah iyo sidoo kale inay sababto qalqal ku yimaada xaaladda caafimaad ee bukaanku iyada oo taasina ay sababi karto in markaa bukaanku uu la kulmo xaalad caafimaad darro oo ka liidata midii hore ugu sugnaa haddaba sidee looga hortegi karaa qaadashada dawo aan dhakhtarku u qorin taasi oo bulshadeenu inta badan ay isticmaalaan kalana kulmaan xaalado caafimaad darro oo ka liidata midii markaa hore ay ugu sugnaayeen waxaa looga hortegi karaa in la sameeyo olole caafimaad oo bulshadu loogu wacyigelinayo khataraha markaa ka imaan kara dawooyinka aan dhakhtar qorin iyo in sidoo kale bulshadu la fahamsiiyo muhiimadda ay leedahay la kulanka dhakhtar iyo in baahidaada markaa aad u sheegato waa in bulshadu la fahamsiiyaa muhiimadda ay leedahay talo caafimaad iyo la kulanka dhakhtar bedelkii ay qaadan lahaayeen dawooyin ayagoo aan la kulmin dhakhtarku waa in sidoo kale dawladdu ay la timaadaa istaraatiijiyad cad oo arrintan markaa looga hortegayo laguna xakameynayo qaadashada dawo aan dhakhtar qorin taasi oo bulshadeenu ay badi kala kulmaan dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ah sidoo kale waa in dawladdu ay xoojisaa
الفرمشيغو وصل قفلة إيبين كريل دو يدعو قفك وصل هيسل ورقد رجاتة أو بحيا دكتوركو gabagabadii isticmaalka ama qaadashada daawooyinka dhakhtar qorin waxa ay bulshadu u horseedi kartaa inay kala kulmaan dhibaatooyin dhinaca caafimaadka ah oo halis ah waxaa la muhiim ah in qofka bukaanka ah uu la kulmo dhakhtar oo uusan qaadan dawo iyada oo uusan la kulmin dhakhtarkiisa waa inuu la kulmaa dhakhtar oo u sheegtaa dhibaatadiisa si markaa uu u helo dawooyin ku habboon oo caafimaadkiisa wax u tari karta bedelkii uu iska qaadan lahaa dawooyin aan dhakhtar u qorin taasi oo u horseedi karta in markaa xaaladdu ay ka sii darto ama uu galo xaalad ka liidata midii hore ugu sugnaa baraaruga dadkaygaanidha 100 kun oo jeere baaq waxaan u dirayaa dhammaan bilaadaadini